anigoo nolol fiican iska haysto xaaladii baraambur tahay ii kala kacsan tahay waa tii shabaabkii wixii dhaceen hooyadii Faadimo Maxamuud Soomaan waxay tilmaantay ku duceeyaa bax iga tag meelaha Yurub iyo Mareykanka iska aad waa soo bax Yurub askay qaxooti baan isku diibay marka inta maad suud oo wato qaxooti baan noqonaysaa wax ku yaqaana iyo cid kula hadlaysa ma jirto waxaan ahay iyo babulaaran ahay iyo Soomaaliya taqaanaan ahay iyo waxaas ma jiraan qaxooti yar maskiin baa iska tag qaxooti baan noqday wallahi aan bil sheegay marka qaxooti noqday waxaan u sheegay inaanan meel kaama ku noolaan karin marka dawladda jibcay warqada codsiga qortay waxaan u tagay kuwa dadka caawiya waxaan u sheegay inaan meel kaama ku noolaan karin marka horna guriga oo nin seedigay gabadha qabo ree ayaan la gurigiisa aan deganaa waxay ogolaadeen gurigaas inaan ku noolaado sharciga markii isiiyeen guriga idajiyeen markii guriga idajiyeen naag baa i timid waxay ugu tiri waxaan rabaa inaan ay ku qoro gurigaan deganaa masaafar ku yaala Rotterdam meel yaad wala yaqaan waxay tiri inaan ay ku qoro rabaan ku dhaxmaas ana istibraan ku dhax ana istibraan ku dhaari waxay tiri xagee keenaysaa lacag waxay tiri waxa laga baahan yahay waxa laga baahan yahay sidaas waxay tiri say ku dhici kartaa ina aad tiraahdo ana istibraay sharciga tan ku ogolaanaya guri dhigasho ku ogolaan waxaas ma jirta ku dhax dawladda Soomaaliya soo la daawmay no aan ku dhaxno waxaan samaystay kambani leeyado undersug journalist xalasu oo media oo one man kambani leeyada samaystay dadka saaxiibada waalidina intaas dhaqan Soomaaliya war waa waalan tahay waxa qaadano ku dhax ana shaqaysanaa wixiga ka shaqaystay waaga cusubkayga YouTube-kayga waxaasan ka qaraabta qararabtaydan galay waxa helaa koonka ku shubtay tirooyinkii noloshii la kala baxay bas ashur bixiya noqday ma faham wax iga halaabay iyo wax aba yaraatay weligay dawladda Isbaana wax iga halaabay ilmihii ka halaabay xaaskii ka halaabay noloshii ka halaabay ma jiraan waxaan taa ka wadaa ana shaqaystay haddaan dawladda ilaahay baxe ma taqaana ilaahay kuma soo diiday dadka ka soo noqon $3 qaadeen meel hebel $2 qaadeen meel hebel ka soo shaqay howgaas oo ku soo dhigdhig xagga wada hebel soo xaqdi la ilahay waxa weeye qof shaqaalahan ahaan lahaa nin ragana $3 kuma noolaa karo $2 nin ragaho tol iyo qaraabi ehl kuma noolaa karo rag faciyahay way jabay nolosha ka dhacay laakiin wax kastaan u bareeray taa waxaan diiday Soomaaliya dhayso kow markii aan ku cusbay Yurub waxaan la jiray hadii lacag bangiga lagu soo shubo waa lagu qabsan dawladda ani waxaad sameeyay account wax la samaystay oo bish aan 3 bilood bar bii gareeyo account tii samaystay lawyer ay dawladda iga bixin oo aniga iska bixiyaan samaystay wixii nidaamkiiga hagaagsaday lacagtiisa siiya lawyerka qofkii aniga soo waxaan lawyerkiga la hadal marka wixii waa isku duba dhacay marka waxaan ka wadaa marka nolosha hadba saad u aaminto yay kugu noqonaysaa nolosha hadba saad adigu aaminto nolosha yay kugu noqonaysaa haddaad aaminto inaad shaqaale qof noqoto oo ama dawlad ama shirkad u shaqayso oo shaqaale mushaar ku xisabtana mushaarkaas ila shanaysa qof mushaar ila shanayta oo waxa la siiyaa bishaas haddaan laakiin